heshiinayaa khasab waxba kuma lihi colaadaha waan joojinayaa dadka waan heshiisiinayaa Somaliland khasab lagu noqon maayo dadka Google baan inta inay yiraahdaan way la baqeen nimankii garxajis waxay buu hoodle nin caaqila baan weydiiyay ujeedada dagaalkan ka dambaysa wuxuu ugu yiri dagaalkan waxa la oran karaa nimankan soo weeraray habar Yunis baa ugu horeysay buu yiri wuxuu yiri waxaan u bixinay dagaalkan idaafac aan ku doortay amaba wuxuu yiri dabka ila gal aan ku doortay laakiin wuxuu yiri waxay ahayd habar Yunis inay yiraahdaan walaalayaal na doorta aanu dabka idin ka daminay ama horta habana dooranine waa maxay dabka ku jirtaan oo macnaheedu yahay SSC way ogolayd habar Yunis inay soo fadhiisato oo tiraado habar jeclay maxaa idin ka khaldan waa maxay dhibaatada idin haysata oo nimankan kala dhaxaysa nimankan ma iyaga dhulkiina doonaya mise idinka dhul doona chance ka haysteen waxay kaga jawaabeen iyagoo aan la dooran ina arag dhageysateen luuqada ay ku hadleen ina chamber waa dhageysateen dhaqanka habar jeclay dhageysateen niman sandalada sheegta habar awal suwer awal hargeysa ka hadlayna ina waa dhageysateen waa dhaqan ka aradan islaamka akhlaaqda iyo Soomaalinimada intaba luuqad ka aradan weeye maxay yeelay hadaa tahay dhaqan oo aad dadku fiidooda sidatid sideedaba waxa xaraan ka ah waxaan maslaxad ahayn xitaa hadaad reerkaaga u go'aaminaysid inay colaad galaan oo wax iska celiyaan ra'yi caamka wanaag sheegtid weeyaan hadhow ilaahay wuxuu rabaa ku xisaabiyo nimankii habar Yunis waxay ku hadlaan maqasheen waxaan rabaa inaan idin sheego ninka magaciisa la yiraahdo Cabdiraxmaan Ismaaciil Yaasiin social media waa ninka cusub inta reer Sheekh Isxaaq hadashana waa ninka ugu daacadsan uguna gobaysan uguna ilaahay yaqaansan iyo rasuulkiisa ninkaas hadda ka hor wuxuu noo sheegay ujeedada dagaalkii ka dambeysay inay ahayd inay shireen saraakiil habar wala iyo niman habar jeclaa oo saraakiil ah ujeedada dagaalkaas u dhacayeen inay ahayd inta laas caanood ka sokaysa in laga safeeyo dhulbahante si ay laas caanood u yeelato u ahaato magaalo la wada leeyahay walidaalka waad maqasheen magac la yiraahdo bariga sool baa loo bixiyay gobolkii sool oo caynaba laga degan yahay ninkaasi wuxuu sheegay hadda markasta oo habar jeclo ay reer isqabtaan ka soo bilow dagaalkii 94 ee garxajis la galay ku xigtay dagaalkii kalshaale ku xigtay dagaalkan hadda socda markasta oo dagaal habar jeclo ay gasho ciidanka qaranka waxa loo yaqaan iyagu la saftaa limaada waad ogeedeen kalshaale xirsibu ahaa ninkii jaangoynay dagaalkaas silaayo si isagu inoo sheegay nin maqaar ah meel iska saaran buu ahaa markii lagu gubtay oo dabka raacayna dib baa looga baxay hadda social media dad baa wax ku kasoomayaan Muuse Bixi oo calaalaya oo markaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ah oo le waxaan u baahanahay dagaalka in la joojiyo waxaan u baahanahay cid kastoo awood inay nabad ka shaqeyso waa taariikhda hadda ma aha wajigiisa hadda markaa ay hadda isu eeg laakiin waxaanay ogeyn buu hoole iyaga oo tukaraq jooga oo inta badan dabaqoodhi wata dhulbahanta sheeganayay ayay buu hoole ku gubteen oo dadka buu hoole degan ay diideen wixii hore tage inaan taa ka dambe lagu darsan laakiin niman garaadsanaya ama isbedelaya ma aha waxaan xasuustaa kama caajiso tixdaas على دوح قبيسي سلالية ولا العقد يربهيدين سيدتا سلكيدان وغان سبولك وحلا كبيرك ولا قصارة سلالية ولا العقد يربهيدين سيدتا سلكيدان وغان هبرج عليه وانا سوغيا wuxuu yiri ninka garka cad oo caawa halleeyay aanu min Ibrahim ka hadlay wuxuu yiri waxa soo qaadateen qandaraas Somaliland lagu burburinayo waxaad ogaateen inuu isaaq midoobayo anagu inuu isaaq midoobo oo wana ku midoobo waa soo dhaweynina
inay guulaystaan kuwa amxaarada diidan waan soo dhaweynaynaa inay jabaan kuwa oramada sheegtay waan soo dhaweynaynaa laakiin wallaahi alcadiim ilaahay magaciisaan ku dhaartay aniga shakhsiyan ilaahay wuxuu isiiyey iimaan aan wiilka Soomaaliga hadduu gaarisa ku dhinto iyo hadduu ku dhinto meesha la yiraahdo Djibouti iyo hadduu ku dhinto meesha ugu dambaysa la wayacdo iyo hadduu Hargeysa ku dhinto aan isku dareen ka ahay ilaahay baa idaalacanaya cidna wax kaga dooni maayo maantana wiilasha kulli aday meesha la yiraahdo isha qorolugud area waxay ku dhiman karayeen halka ay ku dhinteen meel ka qurux badan waxay samaysan karayeen taariikh Soomaalida ay ku xasuusato waxayna shaqaysan karayeen janno ay ilaahay la hortagaan subxaanahu wa ta'ala maxaa yeelay dhulka Soomaaliyeed iyagoo ilaalinaya iyagoo ka hortagaya uraaga iyo amxaarka la hor wado ee badda Soomaaliya ku socda iyagoo la dagaalamaya haday dhiman lahaayeen ilaahayna jannay ka heli lahaayeen Soomaaliya sharaf ay u ahaan lahayd waxay maanta ku dhinteen ilaahay baa weydiinay subxaanahu wa ta'ala waxaana tabeeya guryahoodii iyo hooyooyinkood nafabageedka ay beertay goosan midhihiis aniguna gudooniyo xirmo ugu gudgalaya anagu dagaalkayaga aanu ku jirno waa difaacu nafs waana difaaca sharafta iyo siyaadada iyo qarannimada Soomaaliya inaanu Soomaaliya midnimadeeda difaacano dhulkayagana ka ilaalino wasakhda iyo kuwa u shaqeynaya oo shisheeyaha ah oo aanu ilaalino siyaadada iyo midnimada wadanka waa sharaf adduun waana sharaf aakhiro weey waxaanu u rajaynaynaa in kasto qofku markuu dhimanayo xulashadiisa isaga uu leeyahay oo laga rabo inuu ku tala galo ilaahay wax uu kula kulmayo oo uu ilaaliyo xuduudda dagaalka oo qofka muslimka ah uusan ku duulin oo meedka iyo dhaawaca la sharfo oo la karaameeyo oo maxbuuska la ilaaliyo anagu intii karaankeena dagaalkeena waxaan waafajinaynaa shariicada mabda'iyan laakiin nin waliba wuxuu dhinto ilaahay kaligiisu weydiinayaa marka waxaan rabaa inaan idin sheego waa dhageysateen habaryoonis waa dhageysateen caaqilkii yira gudida garxis afkeedan ku hadlaya waxaan rabaa inaad ila maqashaan ilaa ay hadda intaan dhageystay dadka hartiga ah ee hadlay nin caaqil ah oo la yiraahdo caaqil Faarax Maxamuud Gabaydhe oo aan rajaynayo inuu ka hadlay degmada la yiraahdo Dhaxar bal hadda ila dhageysta waan isu soo noqon doonaa walaal le habar jecel Soomaalilandnimo iyo isaaqnimo iyo derisnimo iyo ehelnimo aan ku dhinac taagana waxaan ka mid ahaa anigu raggii laasacaanoo dagaalku markuu ka bilowday lahaa xukuumadda joojiya dagaalka raggii abhinayay markay diideen raggii dagaalka soo galay baan ka mid ahaa waxa weeye annagu dhulbaxanta hadduu gardaran yahay waxaanu diyaaru nahay inaanu gacanta ku dhigno oo khaldan yihiin xarig annaga waa ehel annaga waa tol annaga waa garabna annaga waa hadday gardaran yihiin gacanta lagu dhigayna hadday gar leeyihiinna waa isgarab taagayna laakiin khalad ku raaci mayno sax iyo khaladba ku raaci mayno waxaanu ku raacaynaa waxay ku saxan yihiin waxaan maqlayaa nin weyn oo caaqil oo leh sax iyo khaladba waxaanu ku raacaynaa habar jecel haddaad sax iyo khalad ku raacdo dhulbahantow nin adeera badan baa taho waa lagu iman haddii aad khalad ku raacdo iyagana khalad baa lagu raacay laakiin waxaan leeyahay guud ahaan waxaan leeyahay oo ku baaqaya haddaad dad islaama tihiin oo wax garanaya dagaalkaasu waa saxaabada markuu ka dhacayo dagaal qadiyad wuxuu ahaa xukuumad iyo shacabkii saxaabada deganaaba isqabtay oo xukuumaddu ku laysay oo madaafiic lagu garaacay oo lagu xusuuq kanu kii waa ka duway waa dagaal beeleed guuldarro waxaan ahayn laga dheelmi maayo mana dhalayso waxaan leeyahay okay adeer kaas wuxuu yiri dhulbaanta annaka ahelo ah gar wixii ay u leeyihiin wixii gardarra ay wadaan gacantan qabanaynaa wixii ay ku gar leeyihiin ku garabsiinayna khalad iyo sax anagu mid kuma raacna laanahu ina Jaambir baa wuxuu yiri habar jecelo gar iyo gardarro isaaqnimo iyo Soomaalilandnimo gar baan ku siinayna ka soo gudub
aan ku soo gabagabeeyo Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin dagaalkan waxay qorsheeyeen markii ay jabeen 25 August kadib qorshahan baa la digay waxaan loo bixiyay SSB ujeedada laga lahaa waxay ahayd first in dagaalka waji kale loo yeelo colaadana dab lagu shubo aanay istaagin waxa la dilayaana la yiraahdo waa habar jeclo ciidankii la jabiyay ee Soomaaliland la oran jirayna in saldhigyo lagu xareysto qaybna dharka laga bixiyay oo la yiri SSB baa tihiin waxaan idin sheegayaa marka iyaga qiraya laftigooda sheegaya dagaalkan hadda inuu Muuse ka dambeeyo laakiin laba qodob baan idin sheegayaa Muuse Biixi wuxuu booqday Burco laba goor markii uu shirka kulmiye ka dhacay wixii ka dambeeyay laba goor buu booqday mar wuxuu ahaa markii uu gobolada marayay oo dagaalka iclaaminayay habar jeclana wuu la sharay habar jeclo wuxuu ku yiri kama warwarsani dagaalka kama warwarsani doorashada inaan ku guuleysanayo laakiin waxaan ka warwarsanahay buu yiri dagaalka doorashada ka dambeeya inay ila galeysaan waxay yiraahdeen horta doorasho qabo waa ballan buu doorashada qabto marka labaad oo uu burcaymina waxay ahayd maalintii dawladdu diyaaradda u qiimi iyagu waxay yiraahdaan ugabaad rasan baa heesoo qaaday waxay tiraahdaa waxa isbedel baa loo jahaystay laakiin Muuse maalintii dhaweeytay markuu u yimi wax kaambeena kala ma hadlin wuxuu kala hadlay in dawladnimo loo jahaystay wuxuuna u sheegay nimankii buurta galay iyo kuwii ka soo rogay iyo kuwii maktab bixiyaba inay khaayin wadaniyihiin sharcigan la horkeeni doono nin kule nin ka hadlaya sharciyad iyo talaabooyinka ay dawladdu qaadi doonto oo aan campaign kala hadlin ma ninka doorasho ku jira macnaheedu waxa weeye Muuse doorashadan codadka iyo kaararka intuu ku guuleysan lahaa gacanta ku haystaa habar jecelo wixii ay ku sheegeen meesha la yiraahdo ceelaf weyn haddii ay niman run yaqaan oo rabbi yaqaan yihiin wixii ay ceelaf weyn ka sheegeen iyo wixii ay Muuse Burco uga sheegeen hays waafajiyeen filimkan hadda socda ee dagaalkan bilowdayna waxa ku jira waa wixii loo yaqaanay hadhaaga ciidanka qaranka waa arkaysan galabta doolaal oo bal waxa la yaaba ah ciidankii dhammeeyay jamhuuriyadda barakaysan baa waxa loo bixiyay SSB marka qorshaha waxaan laga leeyahay waxa weeye waa in dagaal sokeeya la bilaabo already na waa la bilaabay laakiin waxaan rabnaa inaan u sheegno oo garxijisna u sheegno waxaan u mahad celinayaa nin la yiraahdo Daahir Socdaal islow Socdaal oo reer Muqdisho ah runtii oo aan ku dirsay hadalkiisa limaada rumbu wuxuu ka sheegay qadiyadan wuxuu yiri garxajiso waad ku jirteen colaadda iyo dagaalka waxaad se tiraahdeen kuma aanan jirno waa la idinka yeelay bal soo galo oo waxa kordhisan hal arko nimankaasi waxay lumiyeen fursad ay dagaalka ku joojin lahaayeen waxayna lumiyeen fursad ay meesha madaxweyne kaga noqon lahaayeen waxaana loo dhiibay kubad aan tii saxda ahayn waxbaan si idin sheegayaa cidda ugu mudan oo istaahisha meesha inay hogaamsaa Muuse Biixi weeye maxaa yeelay Muuse Biixi haddii la isdilana waa nin la isdili karo oo dagaal wax ka yaqaan haddii maanta la yiraahdo la xaajoodana waa nin xaajo wax ka garanaya laakiin nimanka sharixi kare waayay siyaasadooda isbedelka oo la xishooday oo kalkirada ku haysta oo maanta iyagoo aad ogeydeen halkii ay gaadheen iyo meeshay marayeen iyo kursiga intay ula saarnaayeen dagaalka iyo dhiiqada cagaha maanta loo galiyay meel ay ka laabtaan ma haystaan waxay habar jecel ku kordhiyaan waan arki doonaa waxaan leenahay waxba ha ka hagranina habar jecel waxaan rabaa inaan ku dhaahdo dagaalka intaa wadeen waa garanaysaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan la hortagayaa inaan hubiyay inaanan duulaanka anagu wax shaqo ku lahayn haddii gaada la dilayna bal hadda waxaad soo tirisaan inta idinku aad gaada dirteen iyo inta gaada la idin soo daray dhexdiina ama aad ku dishan ama ku qabateen Soomaalidan u soo bandhiga nimanka habar jecel ee dhaqanka sheegteen waxaan rabaa inaan weydiiyo qiyaama idin sugayo oo niman islaama tihiin oo waa gar waaweyn tihiin
ya bal hadda Soomaalida waxa u soo bandhigtaan hal clip oo nabadii la idinku baqay aad kaga jawaabteen oo la idinka diiday oo war maxaabiista nagala wareega umaba tamar hayne aad kaga jawaabteen bal soo bandhiga inta kadib waxaan rabaa inaan dardaarmo oo Soomaalida waxa wax yaqaanana aan u sheego aragtidayda sida dagaalka loo xalin karay reer Sheekh Isxaaq garan maayo cid u maqan oo maanta u imanaysa oo xal u keenaysa ma garanayo laakiin Soomaalida kale waxaan rabaa inaan dhahdo mushkiladda meeshan ka jirta reer Sheekh Isxaaq ma aha waa niman habar jecel leedo dhuldoon ah hadda ka hor waxaan idhi war waxaan badiyaar u nahay inaan habar jecel idhaahno war dhulka waxaad haysateen waa haysateen hadda intee u baahan tihiin inaan idinku darno kadib waxay sheegtaan bal waxa laga garto inta kadibna xal hal la sameeyo geela qudhi daaqo oo baraagaha iyo deegaanka iyo magaalooyinka ka mamnuuca sidee nabad loo helo ilaa nimanka cid noo bedelmaysa marka Soomaalida waxa rabaan dhahdo garan maayo cid reer Sheekh Isxaaq oo maanta fayow oo xaajadan lagala hadlo waxaana de waajiba inta nimanka caqligu uga soo degayo in de markay soo weeraraan la iska difaaco awal bana cid duulaan kuma ahayn bal Soomaalida waxaan rabaa inaan dhahdo hadday jirto cid dhexdhexaad noqon karta de koonfurna garan maayo kuwii la soo diray waatay aamuseen adduunka ilaahay waxa ilaahay naxariis abwaan gaariye wuxuu yiri waxaan godobtiisu harin garaad leedu og yahay ninkaaga masugay gole wali waxaanan ilaaweyn oo mar walba aan soo xasuustaa niman Muqdisho laga soo diray Xasan Sheekh soo diray oo dhaqan sheeganay oo la yiri meesha soo ogaada oo laas aanood sideed u idin loogu soo dhaweeyay oo Hargeysa 3 bilood fadhiyay oo wali joogtooda la sugayo waa cuqubada maanta Muqdisho ka dhacaysa Muqdisho calana gar la caydina gar la wad maqasheen marka war waxaan kaga ambabaxayaa cidii Soomaaliya oo nimanka caqli u keenay karta oo garasho u keenay karta ha gurmato hal qodobna ha ogaadaan horaan idinku sheegay waxa ugu aaya xun 3 jirka Hargeysa iyo Burco ku koray oo maanta loo sheegayo in Somaliland la burburinayo war Somaliland ma naqaano oo ka mid manihin oo wax kuma aanan darsan oo shaqo kuma lihin oo nalama yiraaho cali waran cadde iyo booba iyo caaqa ina biixi ina kaahin ciil ku qabo iyo amal xubaantiisa ina cali waraabe iyo kuwa ciilka leelmeeya nimanka inta cabanaya oo ay cuqdada buuxdo nabarkuna calooshooga lagana caalwaay cafis iyo walaalnimo kuwa carada diiday ee xuduudda Soomaaliyeed yeeshay cadowga calankana shisheeye oo sideegada ciidooda waxa adigu ceebta u taqaan waa caada ah cimrigooda oo tagayay ceeb ku sahaydeen itiraafka ay doonayaan waa cadceedumi waxba yaan caruuriya haween caagad loo tumin yaan maraa cadaanaya cagaar lagu cabaadnaan waxba yaan cadaanaya madow loo calaalin adna oo caqligu naafayahay cayl la soo farin cimrigana dhalinyarada yaan looga ridin ceel haduu caafimaad jiro hadii uu caqligu joogo cajalku ka tagay cali khalifa cibaara ah casharada ka qaato ka daya ciliga meeshiisa hadii kale cabaadka iyo wada ciilka iyo wayda tixdaas waxa ahayd 2020 cali khaliifna wada xasuustaan ilaahay una xariisto waraysigii ugu dambeeyay lagaga qaaday jigjiga waxa la weydiiyay hadii uu soo xidhmay wada hadalkii Khaatumo iyo Somaliland oo ay diideen inay kula hadlaan what is next maxaa sameynaysaa wallahi kama warwarsani buu yiri in Khaatumo la hadlo waayo laakiin waxaan ku sheegayaa buu yiri waxa maanta ayagu ay haystaan oo ay higsanayaan hadaan loo sameyn wax ka sareeya hadaan loo sameyn iyaga qarka u saran istilaan buu yiri xumba man hino guri mayno taariikhduna way isqoraysaa nimankaas inta gooray isbedeleen iyo inta luuqaday ku hadleen waad garanaysaan wixii uu ilaahay dhigan laakiin waxaan la dardaarmayaa nimanka jamaahiirta ah iyo mujaahidiinta xaq darirka ah ee daafaca nafsiga ku jira war markaad ilaahay la kulmaysaan ogaada inuu ilaahay idin weydiinayo limaada
maxaa u dhimatay dadka maxaabiista ayaad haysaana si wanaagsan ula dhaqma ama kuwa cusub ha ahaadeen ama kuwii hore ha ahaadeen meydka ha isku sawiranina oo ilaahay uga fogaada dadkani waa ehel waa Soomaali waa muslim waxana way dhamaanayaan taariikhda qormaysa ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba wanaag dhigta ha ku duulanina nimankaas qofka muslimka ah walaalkiina dilkiisa ha ku degdeginina haddaydan tiina u baxsan waayeen laakiin Soomaalida waa inay ogaato wixii kalshaala ka dhacay iyo waxa maanta dhacay waa nafsu dariiqa weeye waa nafsu dariiqa weeye ujeedada dagaalkan haddana waxay ahayd laascaanadu way fogaatay oo way adkaatay aan buuhood lamaanta dabgelino si aynu u jawaabno laakiin waxaanay ogeyn buuhoodle inaan dhulba u harin buuhoodle dhul maanta laga qaato laga qabsadaa uma baharin iyada oo ninka makarafoonka dagaalka u haya uu ahaa ninkii la oran jiray xaabsade oo lahaa intaasaanu dilay oo ay tukaraq joogaan bay buuhoodle ka qosteen SSC oo dawladda maxaa ka malaynaysa ujeedadaydu faan ma aha laakiin waa taariikh wixii idin soo kordha ilaahay ku mahadiya subxaanahu wa ta'ala haddii cadowgiina aad ka guulaysataan oo aad jabisaan marka la idin soo weeraro ha baacsanina wixii idin soo kordha ilaahay ku mahadiya subxaanahu wa ta'ala faanka iyo muusiga iyo isla weynida iyo kibirkana guusha laguma helo ogaada wuxuu ilaahay idinku heelanayaa subxaanahu wa ta'ala waa dulmiga la idinku wado maaha xirfad maaha xeelad maaha xoog waa nasri maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa ta'ala dulmiga wuxuu ka xaramay naftiisa khayr ayaa salaamaya guul baa inoo rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan u weydiinayaa waddankeena xasilooni iyo nabad iyo deganaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan u weydiinayaa dadka shidada ku wada waddankeena hadday SSC yihiin iyo hadday cid kale yihiinba ilaahay inuu qabto subxaanahu wa ta'ala maxaa yeelay annagu daalin ehel ma nihin dhagar qabe ehel lama nihin jaajuus ehel lama nihin ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan u weydiinaynaa meel kasta oo uu joogo ninka dhagar ku wada Soomaali maslaxadeeda iyo waddankeeda iyo sharafteeda iyo ciisadeeda ilaahay inuu duleeyo subxaanahu wa ta'ala ilaahay inuu duleeyo oo garabkiisa ka baxo ilaahay inuu duleeyo oo gurigiisa iyo degmadiisa iyo familkiisa iyo ilmihiisa uu ku celiyo intaasaan oranayaa guul baan noo rajaynayaa hada oo ma aqul wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad